daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films channel oo alaaba idin soo gudbisa dhacdooyinka actorinta Hollywoodka ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal barnaamijkan waxa aynu kusoo qaadanaynaa shanta qalad ee ugu weynaa ee uu jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan galay intii uu fanka ku jiray. daawadayaal Shah Rukh Khan waxa uu ka mid yahay sida la wada socotaanba jilaayaasha ugu dhaqdhaqaaqa roon amaba ugu awoodda badan ee shirkadda Hollywoodka filimada ka sameeya. director kasta oo ka tirsan shirkadda Hollywoodka waxa uu aad u jecel yahay in uu mar qura filim uu isaga leeyahay uu jilaag ka noqdo amaba actor Shah Rukh Khan. ha yeeshee arrintaasi ayada ah Shah Rukh Khan cid kasta kama ogolaada in uu filim u jilo oo waxa uu qandaraas kula jira director iyo producer kooban. waxaa markaa dhacda mararka qaar in Shah Rukh Khan ay u yimaadaan director ay yiraahdaan filimkan sheekadiisu waa sheeko aad qiimo u leh haddii aad adiga jishana ay ka soo bixi karto lacag aad u badan. Shah Rukh Khan waa uu ka diidaa qaarkood qaarna waa uu ka yeelaa. haddaba waxa ay tahay su'aasha aanu arrintaasi u soo qaadanay daawade. waxaa Shah Rukh Khan loogu yeeray 5 filim oo uu diiday 5 filimna waxa ay noqdeen filimaantii sanadahaasi ugu lacagta badnaa amaba ugu qiimaha badnaa biladihii ugu badnaana lagu qaatay sanadkii la jilay oo la sii daayay. 5 filim ee uu Shah Rukh Khan diiday waxaa kow ka ah filimka caanka ah ee Lagan Once Upon a Time in India. filimkaasi diidmadii uu Shah Rukh Khan diiday waxaa codsigii labaad loo geeyay jilaaga caanka ee ay xifaaltamaan amaba ay rivalska isku yihiin darbiga ee Aamir Khan. Aamir Khan qalinka ayuu ku duugay kadibna waxaa bilaabatay jiritaankii filimka Lagan. filimka Lagan waxaa Aamir Khan la waday atirishada caanka ahayd ee filimkaasi ku soo caan baxday ee Crazy Zin. waxaa filimkaasi la sii daayay 15 June 2001. filimkaasi sideentiisa kadib waxa uu noqday muddo 20 sano ah filimka reer Hindiya ay sameeyeen amaba shirkadda Hollywoodka ay sameeyeen oo loo magacaabo amaba inuu u tartamo dalka Mareykanka biladaha lagu bixiyay Oscar-ka. ha yeeshee diidmadii Shah Rukh Khan ee uu diiday Lagan waxa ay noqotay in uu dib uga shalaayo. filimada kale ee uu Shah Rukh Khan diiday in uu jilo ee loo keenay waxaa ka mid ah filimka Munna Bhai MBBS. filimkaasi waxaa la sii daayay 19 December 2003. waxaa filimkaasi jilaa ka ahaa jilaaga caanka ee Sanjay Dutt. ha yeeshee filimka Munna Bhai waxa uu noqday filim uu Sanjay Dutt magac badan iyo sumcad iyo maamuus ku yeeshay. diidmadii Shah Rukh Khan waxa ay noqotay in uu ka shalaayo. waxaa kaloo Shah Rukh Khan hore loogu keenay oo uu diiday filimka caanka ee ay Soomaalidu wada taqaan ee Kahona Pyar Hai. Kahona Pyar Hai diidmadii uu diiday Shah Rukh Khan Rakesh Roshan waxa uu u dhiibtay wiilkiisa oo Hrithik Roshan. Kahona Pyar Hai waxa uu noqday filimka ugu biladaha badan ku guuleysta dunida waxa uuna galay buugga dhacdooyinka dunida. Shah Rukh Khan waxa ay ku noqotay la yaab iyo fajiciso. filimka kale ee uu diiday Shah Rukh Khan waxa uu ahaa filimka caanka ee Rangi Di Basanti. filimkaasi marka uu diiday Shah Rukh Khan in uu jilo waxaa gacanta ku dhigay jilaaga caanka ee Aamir Khan oo ka faa'iideysta fursadaha uu dayaco wiilka kibirka ku jira ee Shah Rukh Khan. filimka Rangi Di Basanti waxa uu noqday filim lacag badan ay ka soo xarooto waxaana filimkaasi la sii daayay 26 June 2006. waxaa kale uu diiday Shah Rukh Khan in uu jilo filimka Chota Akbar oo la sii daayay 15 Febraayo 2008. Chota Akbar waxaa qaatay oo saxiixay Hrithik Roshan iyo Aishwarya Rai. waxa uu noqday filim lacag badan ay ka soo xarooto. waxaa kale loo keenay Shah Rukh Khan in uu jilo filimka Robert ama Intram. waxaa filimkaasi markii loo keenay ee uu diiday Shah Rukh Khan gacanta ku dhigay Rajinikanth ama Jeestole Soomaalida sidii u taqaanay iyo atirishada caanka ee Aishwarya Rai. filimkaasi Robert waxa ku baxay budget amaba lacag gaaraysa 20 milyan oo lacagta Mareykanka waxaana ka soo xarootay faa'iido aad u badan. filimkaasi waxaa la sii daayay oo dunida laga daawaday 1 October 2010. filimadaasi uu diiday Shah Rukh Khan waxa ay ka mid yihiin qaladaadkii uu sameeyay intii uu fanka ku jiray kuwoodii ugu miisaanka cusla. qaladka labaad ee uu Shah Rukh Khan sameeyay
haddaanu soo qaadano waxa ay ahayd jilitaanka filimkiisii R1. filimka R1 waxaa director ka ahaa Anubhav Sinha, waxaa produce gareeyay Gauri Khan oo xaaskiisa iyo Bobby Chawla. filimka waxaa jilaa ka ahaa Shah Rukh Khan, Arjun Rampal iyo Kareena Kapoor iyo Arman Verma. R1 waxaa la sii daayay 24 Oktoobar 2011 waxaa laga sii daayay dalka Imaaraadka Carabta amaba United Arab Emirates. magaalada London waxaa laga sii daayay 25 Oktoobar 2011 26 Oktoobarna waxaa laga sii daayay magaalada Toronto ee dalka Canada iyo dunida inteeda kale. filimkaasi daqiiqadaha uu soconay waxay ahaayeen 156 daqiiqo. waxa uu ahaa filim reer India ay leeyihiin afinti ayuu ku hadlayay. filimkaasi waxaa ku baxday sameyntiisii 1.25 billion lacagta dalkaasi India ee rupees, waxaana ka soo xarootay 2.8 billion rupees. waxaa kaloo filimkaasi ku jiray laba heesood oo uu qaaday fanaanka weyn ee Akon oo waliba lacag badan lagu soo koreeyay qaadista labadaasi heesood. filimkaasi markii dalka India laga sii daayay ma jirin shakhsi qura oo dhameystay filimkaasi R1 bilow ilaa dhamaad. markii ay dadka ka soo baxeen oo ay banaanka yimaadeen waxaa isqabsaday bulaan masraxyada iyo tiyaatarada filimka lagu dhigay, waxaana aad loogu aflagaadeeyay Shah Rukh Khan oo la yiri waxaan kaaga baranay sidii filimka caanka ah ee My Name is Khan iyo Jack the India ee maxay tahay waxa aad la timid. filimkaasi Shah Rukh Khan waxa uu kala kulmay jab aad u weyn, waana lagala taliyay oo waxa la yiri R1 ha isku dayin in aad dalka Hindiya ka gadid ama sumcad kaga raasateed dalka Hindiya. balse qorshaha uu Shah Rukh Khan kala waxa uu damacsanaa in uu saxaafadda ka sheego in uu filim heer caalami ah uu jili karo oo adduunka dhan ka gadmi kara, balse filimkaasi waa uu ku qasaaray. qaladka saddexaad ee xoog leh ee dunida dhan ka wada yaabtay ee uu Shah Rukh Khan jilaaga caanka ku kacay waxa uu ahaa sanadku markuu ahaa 2012 ayuu waxa uu yimid stadiumka weyn ee lagu ciyaaro kubadda cricketka ee Wankheda Stadium. waxa uuna xilligaasi u yimid naadigiisa asaga uu leeyahay ee cricketka ciyaara ee Kolkata Knight Riders si uu dhiirigeliyo maadaama uu tiimkiisa ciyaarayo sida la wada ogsoon yahay presidentaha ama mulkiilayaasha naadiyaasha kubadda hadday ahaan leed midda cagta iyo midda cricketkaba waa ay yimaadaan oo ay ka soo qayb galaan ciyaarta si ay ugu noqoto dhiirigelin oo waxay ciyaartooyda u tahay dhiirigelin sida wada ogtihiin dadka ciyaaraha daawada ayaa yaqaan. presidentaha naadiga Real Madrid Florentino Perez iyo Juan Laporta oo Barcelona waxa ay wada fariistaan laba kursi oo isku dhigan marka ay socoto ciyaarta kalaasikada, waana qaab ay wada xifaaltamaan. haddaba Shah Rukh Khan oo ahaa mulkiilaha naadiga Kolkata Knight Riders ayaa haddaba mulkiilahan Shah Rukh Khan waxa uu sameeyay ciyaartii markay dhamaatay kadib. Shah Rukh Khan oo ahaa mulkiilaha naadiga waxa uu damcay markay ciyaarta dhamaatay in uu garoonka ama pitchka meesha loo yaqaan ee kubadda lagu ciyaaro u daadagto, balse booliskii meesha taagnaa ayaa u diiday oo waxa la yiri mamnuuc ayay ka tahay. waxa uu sheegay in uu yahay Shah Rukh Khan oo uu yahay mulkiilaha naadiga rabana in uu la kulmo. arrintaasi waa ay kor istaageen ofisiirada u qaabilsanaa in ay xanibaan ababa sugaan amniga ciyaartooyda gudaha ku jirta. Shah Rukh Khan oo aad u cabsanaa waxa uu sameeyay aflagaada aan caadi ahayn, gacan qaadna waa uu ku daray, balse ugu dambeyn Shah Rukh Khan meesha waa laga kaxeeyay. waxaana dhacday in Shah Rukh Khan dacwad lagu soo oogay oo uu inkiray kiiska ah in uu gacan u qaaday ofisiiradii garoonka joogay oo waliba aflagaadeeyay, balse mar dambe waxaa soo baxday sawirro laga qaaday iyo codad laga duubay xilligii uu caytamayay. Shah Rukh Khan arrintaas waxa uu ka bixiyay raaligelin, balse guddiga xiriirka ee cricketka ee dalkaasi Hindiya ayaa waxa ay ku dhufteen amaba saareen ganaax 5 sano in uusan Shah Rukh Khan booqan karin Wankheda Stadium ee magaalada Mumbai. qodobka kale ee uu sameeyay Shah Rukh Khan waxa uu ahaa dagaalkii uu la galay Salman Khan. sida lagu ogsoon yahay Salman Khan iyo Shah Rukh Khan waxa ay ahaayeen laba aad isugu dhow saaxiib ah, walaalana la moodo filimaan badan wada jilay. waxaana kamid ah filimaanta ay wada jileen filimkii Karan Arjun Kuch Kuch Hota Hai iyo Hum Tumhara Hai Sanam. balse sanadku markuu ahaa 2008 xaflad ay dhigatay Katrina Kaif oo xilligaas ahayd qofta jacaylka la daadiinaysa Salman Khan ayaa waxaa ka soo qayb galay Gauri Khan iyo Shah Rukh Khan oo ninkeeda. xafladii markay cabaar socotay Shah Rukh Khan waa uu isdaamiyay isagoo dhaansan ayuu waxa uu si kaftana kula kaftamay Salman Khan iyo xiriirkiisa hore ee Aishwarya Rai. arrintaasi waa uu ka gubtay Salman Khan oo waxa uu damcay in uu arrinta meesha ku xiray, balse Shah Rukh Khan ayaa sii qodqoday oo kaftankiisii sii dheereeyay. ugu dambeynna waxa uu Salman Khan damcay in uu gacan qaad ku sameeyo Shah Rukh Khan oo awalba kaftanka
si ula kaca u bilaabay waa uu ka digtoonaaday in gacanta Salma Khan ay ku dhacdo. ugu dambeynna waxaa soo kala dhexgalay Gawri Khan oo ah xaaska Shah Rukh Khan iyo Katrina Kaif oo xilligaasi ahayd saaxiibada Salma Khan. arrintina halkaas ayay ku dantay balse xiriirkoodii waa uu go'ay. mar uu Shah Rukh Khan marti ku ahaa barnaamijka caanka ee uu daadiyo Karan Johar ee Karan Cafe ayuu raaligelin buuxda ka bixiyay Salma Khan, balse arrinta Salma Khan wax afisa ma uusan siinin. ugu dambeynna waxa ay si toos ah u kulmeen sanadku markuu ahaa 2004 guurkii atirishada caanka ahayd ee la dhalatay Salma Khan ee Arbita Khan. arooskaasi ayay isku arkeen waxa ayna noqotay arrin fajicisa ku ah, balse arrintaasi waxa ku dhex jiray Arbita Khan oo martiqaaday Shah Rukh Khan. inkastoo uu Salma Khan sheegay in uusan wax heshiis rasmi ah uusan la qaadan Shah Rukh Khan, balse haatan xaaladooda waa ay degan tahay. qaladka ugu dambeeya ee uu sameeyay jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan waxa uu ahaa oo ay saxaafadu aad u buubuunisay mar uu u waramayay jariirad laha dalkaasi Mareykanka mid ka soo baxa ayuu Shah Rukh Khan sheegay. waxa uu yiri siyaasiyiinta reer Hindiya alaaba aniga magacayga amaba sheekooyinkayga ayay tusaale ahaan u soo qaataan. waxa uuna yiri Salma Khan Shah Rukh Khan halka ku celiya daawadayaal raalli ahaade. Shah Rukh Khan waxa uu yiri dadka muslimiinta ee dalka India jooga waxa ay ku jiraan xaalad adag oo cadaalad darro ah. waxa uuna raaciyay buu yiri mararka qaar siyaasiyiinta waxa ay aniga igu yiraahdaan buu yiri iyaga oo aniga dhiirigelin iiga dhigaya wadanka aad asal ahaan ka soo jeeday maad isaga laabatid, oo ay macnaheedu tahay buu yiri originally anigu waxa aan ka soo jeedaa buu yiri dal muslina, balse waxa ay hadalka u dhigayaan buu yiri in aan anigu dalka Hindiya lahayn. arrintaasi waxa ka gilgishay siyaasiyiin badan oo reer India, balse ugu dambeyn waxa ay noqotay xaalad caadi iska ah. dambeysay Shah Rukh Khan waa uu isxadiday oo wixii ka dambeeyay waxa uu bilaabay in uu xakameeyo dabeecadiisa iyo dhaqamadiisa iyo afcaasha isaga uu sameeyo. daawadayaal shantii qodob ee ugu muhiimsanaa dhacdooyinka uu la kulmay jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. waxa aad ka daawanaysaan Saxafi Films channel. ha moogaanina inaad subscribe tirahdaan si aad ula socotaan barnaamijyada xigi doona midkan aad daawanaysaan. daawadayaal ha moogaanina subscribe inaad tirahdaan Saxafi Films si aad barnaamijyada kan xigi doona ula socotaan. fikirkiina aad inoogu rabtaan qaybta comments-ka ee isla Saxafi Films. inagoo isku duuban oo baada Saxafi Films waxaanu idinkaga tagaynaa inta inan xishoodiyo lagu huba xaq dhowre ku barbaarte xamarba la xamarba xidigtooda ka dhigay inta inan xishoodiyo lagu huba xaq dhowre ku barbaarte xamarba la xamarba xidigtooda ka dhigay waxatay xalaal dhalad maankaygu jira xaggeede waxatay xalaal dhalad maanku jiro xaggeede ogoobay iskaygiyo xubnihiyo dareemada adankaaga xero dhigaaye ogoobay iskaygiyo xubnihiyo dareemada adankaaga xero dhigaaye xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta xisiina sii korodh xusuusiina maanday xisiina sii korodh xusuusiina maanday alla xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta xisiina sii korodh xusuustiina maanday
حسينا سيكرون حسستينا باندين markaan dhabanka xadiyo timasiinaha xaabiyo xaraagiyo qaatayo dareenka xusego yiri markaan dhabanka xadiyo timasiinaha xaabiyo xaraagiyo qaatayo dareenka xusego yiri dalkasiyo adaa sharaf xusul dheer haweenko ilkas iyo adaa sharaf xusul dheer haweenko heerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin ana laabta ku xalaaye heerkaagu waa dhaqan xadhigaagu waa diin ana laabta ku xalaaye xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta hisihiina sii korodh xusuustiina maanday hisihiina sii korodhe xusuustiina maanday hadda xanaaney qalbigii ma xasilo qalbigii xanaaney ma xasilo la'aanta hisihiina sii korodh xusuustiina maanday hisihiina sii korodhe xusuustiina maanday